ninka ragga ah ibtiisa waxaa ka yimaada afar biyaa ka yimaada waa min baabi alfiqhi walfaa'ida afarta biyo ee ka imaada saddexna waa nijaas midna waa daahir kaadidu waa biyo ka yimaada ibtaada maxay tahay waa nijaas meeshay kaa gaadho jidhkaaga iyo maryahaaga iyo makaankaba waa la nadiifinaya biyaha labaad ee kaa imaanaya waxa weeye wax la dhaho madyi oo ninku markuu hamadoodo oo hamadiisa kacdo kabacdi waa biyo yaro cadoo jilicsan rag iyo dumarku waa ka yimaadaan iyaguna waa nijaas jirkaaga iyo dharkaaga meeshii ay gaaraan waa iska ilaalinaysa biyaha saddexaad ee yimaada wadyi baa la yidhahdaa wadyi af soomaaliga jaleelaa lagu yidhahdaa jaleelo saddex qaab bay ragga uga timaadaa dumarka kama yimaadaan saddexda qaab ragga uga yimaadaan qofku inuu culays badan qaado وحماله culays badan ama shaqo aad u culus oo waxyaalo culus oo badan uu qaado hadhow marka uu kaajo kaadida kadib waa biyo cad oo ka imaanaya oo sida manida oo kale ah ama waxay ka yimaadaan qofku markuu socod dheer uu lugeeyo uu socdo saacado fara badan bay kaadida dabadeeda timaadaa marka uu nasto ka bacdi ama waxay timaadaaba taa wax ka dhowo dadka qaadka cuna maaragtay qaadka markuu cuno hadhow markuu xabaar si fiican u cuno caleentaas iyo qashinkaas kaadi markuu isdhaho kadib kaadiday soo raacaysaa hal baa ku haray waa manida shahwada ah ee ilaahay naga abuuray subxaanahu wa tacaala manida shahwada ahna cala alqowli raajix waa daahir